gudoomiyaha Qooje uu yahay gudoomiyaha u istaagay dhalinyarada iyo dhammaan akademiyada gobolka Banaadir in dhalinyarada Soomaaliyeed oo way qalab ay ku ciyaaraan oo way kubada ay ku ciyaaraan oo way garoon ay ku ciyaaraan maanta iyo maalmo ka horeeyba diyaar u ahaa inuu gacan siiyo garoonka General Daawud ee degmada Yaaqshiid waxa kula soo dhaweynaa loogu sameeyay gudoomiyaha jaalida sportska dalka Vilan ahna gudoomiyaha ururka Sokosrey Mudane Cabdiqaadir Axmed Macalin Qooje ka oo dib ugu soo laabtay dalka Sadoobintan heerka sare loo sameeyay gudoomiye Qooje waxa qayb ka ahaaba fardoolooyada Soomaaliyeed inay aad u soo dhaweeyeen sidoo kale qaar kamid ah akademiyada ka dhisan gobolka Banaadir sidoo kale kulanka Sadoobinta waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo kamid ah gudoomiyaha gaadiidka sidoo kale gudoomiyaha hore mini footballka gudoomiyaha fardooleyda iyo mas'uuliyiin kale oo waxa goobta ka hadlay Xaaji Aadan Cabdulle ka oo sheegay Qooje uu yahay shakhsi mudan in lagu daydo garoonka General Daawud aan ku soo dhaweyno walaalkay Cabdiqaadir Macalin Qooje oo runtii abaalmarintiisa hawsha uu u qabtay qaranka Soomaaliyeed ee bilow tahay ma dhamaad ma dhaxtaal runtii waa bilow shaqada suugaysana waa shaqo aad u baaxad weyn insha Allah taala biidnillaahi kariim aqayaarta General Daawud garoonkeeda waxa ugu mahad celinaynaa ma walba oo aragno Cabdiqaadir magaalada Muqdisho markuu yimaado way soo dhaweeyaan garoonka General Daawud iyo 10 kooxood akademiyada aadaan ugu faraxsanahay dhammaan haddaan nahay bahda sportiga waa geesi Soomaaliyeed oo noo soo baxay Cabdiqaadir iyo Sokos RY-na 11 oo runtii iyaga laftirkooda u tafaxaytay in dhalinyarada Soomaaliyeed oo way qalab ay ku ciyaaraan oo way kubada ay ku ciyaaraan oo way garoon ay ku ciyaaraan maanta iyo maalmo ka horeeyba diyaar u ahaa inuu gacan siiyo aad ayaan ugu mahad celinaa taas tan labaad waxaan rabnaa inaan meeshan ka cadayno ma aha oo kaliya garoonka magaalada Muqdisho ku yaal ama garoon magaalada Muqdisho ku yaal Cabdiqaadir waxaan ka warqabnaa Soomaalida meel walba ay degto caalamka inuu sidan u tagay inuu akademiya sidan oo kale u soo sameeyay waxa ugu dambeysay socdaalkiisa Ethiopia uu ku tagay meesha Soomaalida ay degto kiliga shanaad gudoomiyaha Qooje oo ah dhiirigeliyaha dhalinyarada sidoo kale akademiyada ka dhisan gobolka Banaadir runtii waa wax farxad leh in la helo qof Soomaali ah oo dhiirigeliya intaan qof oo dhalinyaro ah kana dhisan gobolka Banaadir iyo qaasatan Soomaali weyn oo dhan waa wax lagu farxo waan soo dhaweynaa insha Allah anagoo ku hadlaya magaca gudoomiyaasha kooxaha ka dhisan dalka waxaan ku faraxsanahay in gudoomiyaha Qooje uu yahay gudoomiyaha u istaagay dhalinyarada iyo dhammaan akademiyada gobolka Banaadir inuu taageero qaasatan kuwa ka dhisan dalkeena Soomaaliya runtii waxa maanta ay ka turjumaysaa munaasabadan ay kulmisay bahda sportiga oo run ahaantii nin weyn oo magac iyo maamuus ku dhaxlay bulshada runtii mudane Cabdiqaadir Macalin Axmed Qooje runtii gudoomiyaha Sokos oo run ahaantii waxyaabaha uu ka qabtay sportiga ama uu ku soo kordhiyay aynan ahayn wax taariikh ahaan ama inta lagu soo koobi karo oo aan uga mahad celinayno runtii waa ninka kaliya mar waliba ama soo booqda dalka runtii mar walba dhiirigeliya dhalinyarada sidaad arkaysaan ama ay ugu jecel yihiin ama ay u faraxsan yihiin wax kale ma aha runtii Qooje waxa uu sportiga ku soo kordhiyay isha ayaa marqaati ah run ahaantii anigoo ku hadlaya magaca xiriirka fardaha Soomaaliyeed tiimka General Daawud ahna wakiilka Sokos RY ee magaalada Muqdisho waxaan maanta ku soo dhaweynaa oo sameeynaa abi sportiski barbaari sportiski dhalinyarada idin akademiyada waxaan maanta soo dhaweynaa anigoo sheegsana gudoomiyaheena Cabdiqaadir Macalin Qooje ugu dambeyn gudoomiyaha Cabdiqaadir Axmed Macalin Qooje ayaa aad ugu mahad celiyay shakhsiyaadka isku soo hoolay soo dhaweyntan qiimaha badan bismillahirrahmanirrahiim waxaan marka hore u mahad celinayaa dhammaan dadkii soo qabanqaabiyay munaasabadan quruxda badan leh oo maanta lagu sharfo lagu soo dhaweeyay ma aha markii koowaad ma aha markii labaad markii saddexaad mar badan ayaa la soo dhaweeyay dhammaan waa mahadsantihiin dadka ka soo shaqeeyay qaasatan General Daawud saaxiibka Ismaaciil iyo mataqaana iyo Eela gudoomiyaha Eela waxaan waxa ka mas'uul ah macnaha aniga aan shaqadan u dhiibay Eela waaye isaga la'aantiisna aniga waxba ma qabaleen isaga ciyaartooyda soo eega isaga akademiyada u taga mar alla markuu akademiga yiraahdo akademigan uu buuxiyay shuruudii aan ku talagalnay qalabka ayaan siinaa waxaan mar walba u taaganahay macnaha ummadda Soomaaliyeed meel walba ay wadanka degan inaan caawiyo kuna caawiyo wixii aniga karaankayga aan heli karo waad ogtiin macnaha mataqaana caqabado badan dadka tirada ka bateen mar walba waxaan dibadda ka raadiyaa nin aniga challenge gareeyo waxaan aan qabanay kaliya asna qabta
si macnaha baayaan wada daboolno weli macnaha qofkaas waa la sugaa hadduu maqlaayane hay challenge gareeya hayla tartamo diyaarana waa inuu macnaha qof saas oo kale la helo si ummaddan wax ugu qaban waxaan sidoo kale macnaha halkaan ugu mahad celinaa saaxiibkay xaaji aadan aad iyo aad oo maasa isku hordala saabita macnaha dad sharaf leh aad iyo aad iyagana waxaa xasuusana dhammaan waa salaama cayaartoydii hore macnaha kuwa cuslaaday iyo kuwa hadda joogaba si walba haatee maalin shalay ahayd ayuu wuxuu ku guuleystay shakhsi ugu fiican waxaana guddoonsiiyey wasiirka wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha xilli ay soo agaasimeen xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed.